الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. إلهي وأديك mahad iska leh na soo gaarsiisay bishii muxaram, noo bilowday sanad cusub. ilaahay adaa mahad iska leh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal, maanta kelimadeennu waxay ku saabsan tahay bisha barakaysan ee muxaram, fadligeeda, taariikhdeeda iyo soonka maalinka caashuuraa oo ah maalinka tobnaad, iyo wax maaragtay fadligiisa ku saabsan, iyo sidoo kale axkaam kale oo maaragtay la xiriirto. walaalayaal, khayrka nagala qayb qaata faafintiisa, walaalaha gaarsiiya, nafteenna aan ku dhaqno, dadka walaalaheenna aan sii gaarsiino. sababtoo nabigu wuxuu leeyahay sala allahu alayh waali wasalam, sababtoo ah nabigu wuxuu leeyahay sala allahu alayh waali wasalam, addaallu cala alkhayri ka faacilih. qofka khayrka dadka tuso waa midkii sameeyey oo kale. ajarka qofka sameeyo ayuu leeyahay, waxbana lagama nuqsaaminayo ajarka. bisha muxaram waa bil weyn, waa bil barakaysan, waana awalu sana alhijriya, bisha ugu horeyso sanada hijriga ah. waana bil ka mid a 4 bilood marka uu ilaahay ka sheekeynayay maaragtay bilaha. wuxuu yidhi ina ciddata ashuhuuri cinda allahi 12 shahran fi kitaab illah yowma khalaqa asamaawaati waalarda minha 4 xurum. bilaha, tirada bilaha ilaahay agtii waa 12 weeyaan. tirada bilaha ilaahay agtii waa 12. waxaa ka mid ah 4 xurmo leh. 4taas buu nabiga sii sheegay sala allahu alayh waali wasalam. xadiidka abi bakra oo bukhaari soo saaray, wuxuu yidhi assanatu 12 shahra minha 4 xurum. sanadku waa 12 bilood, 4 bilood xurmo leh ayaa ku jirto. 3 mutawaaliyaat, 3 way isku xigaan. waana dulqacidati wa dulxija walmuxaram, oo hadda bisha aan ku jirnaa oo maanta 3 marayso. wa rajabu mudar aladi bayna jumaaday wa shacbaan, iyo bisha maaragtay la yihahdo rajab oo uu nabiga reer mudar u nisbeeyey. bayna jumaaday wa shacbaan, waxay udhexaysaa jumaad alaakhir iyo bisha shacbaan. rawahu lbukhaari. waxaana loogu magacaabay muxaram likownihi shahran muxarama, ahaanshiisa uu yahay bil maaragtay bilaha xurmada leh ka mid a, wa ta'kiidan litaxriimih, iyo adkeyn la adkeynaayo xurmadiisa. ilah wuxuu yidhi falaa tadlimuu fiihina anfusakum, naftiina ha dulminina bilahan dhexdooda. sababtoo a dembigu waa uu ka sii badan yahay kii hore, oo waa la labalaabayaa sida maaragtay wanaagaba loo labalaabo. bishan muxaram ah fadliga ku soo arooray in la badiyo soonka. can abi hurayrata radi allahu canhu qaal, abi hureyra waxaa laga wariyey inuu yidhi qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam, afdalu الsiyaami bacda ramadaan shahru llahi almuxaram. soon waxaa uu fadli badan muxaram dabadeed bisha maaragtay muxaram. rawaahu muslim. idaafada ilahay loo tiiriyeyna waa idaafatu tacdiim, waa weyneyn waay walaalayaal. cashuuraa fi taariikh, taariikhda gudaheeda cashuuraa xaalkeeda sidee buu ahaa. ibn cabaas waxaa laga wariyey, wuxuu leeyahy radi allahu canhuma, qadima annabiyu sal lla ly slam fara'a alyahuuda tasuumu yowma cashuuraa faqaala ma hada, qaluu hada yowm صaalix, hada yowm naja allahu bani israa'iila min caduwihim fasaamahu muusa, qaala faana axaqu bimuusa minkum fasaamahu wa amara bisiyaamih. rawaahu lbukhaari. nabiga ayaa yimid magaalada madiino, wuxuu arkay yahuudda oo soomaysa maalinkan. wuxuu yidhi waa maxay waxay samaynayaan? markaasa waxay yihahdeen waa maalin wanaagsan, ilaahay uu badbaadiyey reer bani israa'iil cadowgoodii, muusena sidaa ayuu u soomay. aniga ayaa idinkaga xaq badan buu yidhi nabiga sal ly slam. muuse waa una soomay, ummaddiina waa u faray inay soomaan. sidoo kale walaalayaal, maalinka cashuuraa
fadli gooni ayaa kusoo arooray soonkiisa. ibn cabaas wuxuu leeyay ma ra'aytu الnabiy sal ly slam yataxaraa صiyaama yowmin fadalahu calىa gayrihi ila hada اlyowmi yowma caashuraa. maalin uu geyrkii ka fadilay oo uu nebigu ku dadaalay soonkiisa maana arkin buu yihi maalinkan oo kale ah. wa qaala الnabiy sal ly slam sidoo kale nebiga xadiid kale wuxuu ku leeyahay صiyaamu yowmi caashuraa inii axtasibu calى allah an yukafira aلsanata alatii qablah. maalinka caashuraa soonkeeda inuu ilahay igu dhaafayaan rajeynayaa sanadkii ka horreeyey. ibn cabaas sidoo kale wuxuu warinayaa, wuxuu leeyahay nabiga markuu soomay sal slam maalinka caashuraa uuna faray in la soomo, waxay yidhaahdeen maaragtay muslimiintii ayaa waxay yidhaahdeen maalinkan waa maalin yahuuddu ay weyneeyaan. nabigu wuxuu yihi sal slam faida kana alcaamu lmuqbilu in shaa allahu sumna taasica maalinka sagaalaadna waa soomaynaa buri nabiga sanadka soo socda. wuxuu leeyahay ibn cabaas falam yaأti alcaam almuqbil xata twufiya rasul lah sal slam. sanadkii soo socda muusan imaaneyn ilaa nebiga la oofsaday. rawaahu muslim. shaafici iyo maarata asxaabtiisa iyo axmed iyo isxaaq iyo dad kale waxay yidhaahdeen maalinka sagaalaad waa la jeclaystaa in la soomo iyo tobnaadba la isku daro. maalinka keligiis ma lagu gooni yeeli karaa soon tobnaad? sheekh alislaam wuxuu leeyahay maalinka caashuraa hal sano ayaa lagu dhaafaa. hal sano ayaa lagu dhaafaa. in soon lagu gooniyo yeelana oo keligii la soomana maaragtay makruuh ma aha oo wax la maaragtay karaahaysta ma aha. haddii uu sabti kusoo aado ama jimco bal ka waran, waxaa soo arooray nahyi in maalinka jimcada soon lagu gooni yeelo ama sabtida sidoo kale, ilaa fi fariidatin, fariido inay tahay mooyaane oo wax waajib ah. laakiin haddii uu maalin ku daro oo maalin kale uu ku daro, meeshaas waxaa ka baxaysa karaahadii, ama uu waafaqo caado usoo socotay oo uu soomi jiray, sida in maarata alayaam albiid oo kale ama khamiis iyo isniin ay waafaqdo, ama soon maaragtay nadar iyo maaragtay wixii la mid ah, ama uu ahaa qof maalin soomo maalinna afuro. haddii bisha bilowgeeda aad ku wareerto maxaad samaynaysaa? waqtiga bisha ay bilaabatay haddii aad ku wareerto maxaad samaynaysaa? alimaam axmed wuxuu leeyahay fain ishtabaha calayhi awalu shahr, bisha bilowgeeda haddii uu ku wareero saama 3 ayaam, 3 ber ayuu soomi, si uu u xaqiiqsado maalinkaas inuu maaragtay haleelay maalinka hore, maalinka dambe iyo maalinka caashuraa. almuqni libni qudaama ayuu maaragtay arrinkaas lagu soo arooriyey. caashuraa maxaa lagu dhaafaa? dambiyada yaryar oo dhan baa lagu dhaafaa. dambiyada waaweyn maya, sida alimaam الnawowi uu tilmaamayo. dad baa waxay ku kadsoomeen maalinkan soonkiisa oo waxay yidhaahdeen maaragtay caashuraa sanadka soo socdana loogu dhaafay ama hal sanana loogu dhaafay, maalinka carafana 2 sanana loogu dhaafay, salaadaha iyo maaragtay waxyaalaha kalena waaba dheeraad. dad baa sidaa u xisaabtamay walaalayaal. ibn alqayim caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay kan ku kadsoomay arrinkaas lam yadri hada almuqtar ana sawma ramadaana wasalawaat alkhams acdam waajalu min siyaami yowmi carafata yowmi caashuraa. inay ka wen yihiin soonka ramadaanka iyo salaadaha shanta, inay ka wen yihiin maalinka carafo iyo maaragtay caashuraa muusan ogaanin buu yidhi. wa hiya inamaa tukafiru maa baynahuma ida ijtunibat ilkabaa'ir, faramadaanu ilaa ramadaan waljumcatu ila aljumca, ramadaan ilaa ramadaanka kale laga gaaro, jumcada ilaa jumcada kale laga gaaro, maaragtay laa yaqwiyaani calى takfir الsakaa'ir ila maca indimaami tarki اlkabaa'iri ilayha. inay qofka uu ka tago marka maaragtay dambiyada waaweyn baa lagu dhaafaa, maaragtay ayagana wax dhexdooda lagu dhaafaa, waa markii uu ka tago dambiyada waaweyn qofka. marka majmuuc lamrayn, marka labada arrin marka la isku daro wuxuu awood u helayaa in maaragtay dambiyada yaryar qofka loo dhaafo. qofka haddii lagu leeyahay qado oo maalinkana soonkiisa lagu leeyahay bal ka waran. fuqahada waa isku khilaafeen fi xukmi الtaطawuci bisawmi qabla qadaa'i ramadaan. qofka inuu soom taطawuc la yimaado asagoo ramadaan aanan qalaynin. fadahaba alxanafiyatu ilaa jawaazi الtaطawuc. xanafiyadu waxay ku tageen inay bannaan tahay
inuu asagoo soon lagu leeyahay min gayri karaahatin inuu si la yimaado maaragtay soom tadawuca. waxayna maaragtay yiraahdeen alqadaa laa yajibu cala alfawr, qofka inuu maaragtay qadaha yani hore uu ka qaleeyo waajib ma aha. maalikiyada shaaficiyada waxay ku tageen inay bannaan tahay maca alkaraaha, iyadoo macnaha la karaahaysto. laakiin xanaabiladu waxay ku tagtay inay xaaraam tahay qofka inuu maaragtay soomo iyada oo maaragtay lagu leeyahay soom tadawuc ah, iyadoo lagu leeyahay inuu soomo, weliba inuusan asaxaynin bay tilmaameen haddii xitaa waqti waasac uu haysto. marka waxaana laga rabaa inaan u degdegno arrinkaas oo aan soonkana lagu leeyahay iska qalayno maaragtay maalinkii maaragtay ramadaan intaanan macnaha intiina lagu lahaa inaan iska qalayno intaanan ka fakerin inaan soonno maalmaha maaragtay fadliga badan. waxaa jira walaalayaal maalmahan bidcooyin dadka qaar ay sameeyaan. bidcooyinkaas waxaa ka mid ah qofka maaragtay inuu macnaha indha kuusho ama uu qubaysto ama uu cilaan marsado ama waxyaala noocaas oo kale ah, ama farxad inuu qofka muujiyo. arrinkaasna maaragtay ma soo aroorin sharciga meel ka mid ah, kuma soo aroorin. sheekh alislaam ibnu taymiya la weydiiyey arrinkaas, wuxuuna yidhi arrin bidca weeyaan, mana banaano. marka waxaana laga rabaa walaalayaal inaan arrinkaas sii faafino oo maaragtay walaalaha aan gaarsiino oo aan khayrka dadka la jeclaano. ilaahay baa maaragtay arrimaheena toosinaayo, ilaahay baa na hanuuninayo, tawfiiqdana waafajinayo. ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii uu waafajiyo inuu naga dhigo maalinkan soonkiisa. wabilmunaasaba waxay maaragtay yiraahdaan ama maalmahan maaragtay waxay ku tilmaameen inay isku soo aadeen maalmo ilaa iyo maaragtay 8 beri ama 7 beri ah oo ka bilaabato taariikh 8 bishan oo maaragtay ku eg yacni maaragtay maalin khamiisa ku eg. waxay ka bilaabataa maalin taariikh 8 ah ay ka bilaabanaysaa oo khamiis ah, waxayna ku eg tahay maalin khamiis ah. 8daas beri khamiista waa ugu horeyso, waa maalin la jeclaa maaragtay la jecelayo nabigu soomi jiray. waxaana ku xigo jimco, waa maalinkii 9aadka oo waa maalin laga horumarin karo. waxaa ku xigo cashuura oo maalinkii 10aad oo in la soomo maaragtay la rabo. waxaa ku xigo maalinkii maaragtay axadda ah oo asagana maalinkii 10aad oo asagana la soomi karo. waxaa bilaabana marka isniin oo maalmihii maaragtay fadliga badnaa soonkeeda. kadibna waxaa kusii xigo maaragtay 3dii beri oo ayaam albeedka